safiirka Soomaaliland fadhiya dalkan Kenya Baasha Cawil Xaaji Cumar oo gudagalay howlihiisii shaqo ee safaaradda Soomaaliland ku leedahay dalkan Kenya ayaa ka qayb galay shir caalami ah oo lagaga hadlayay dambiyada caalamiga ah ee ka dhaca badaha adduunka sida burcadbadeeda iyo sidoo kale mukhaadaraadka oo ay soo qaban qaabisay safaaradda Denmark u fadhida dalkan Kenya magaaladiisa Nairobi kana soo qayb galeen hay'ado badan oo caalami ah oo ay kamid tahay hay'adda UNODC oo iyadu si gaar ah u qaabilsan dambiyada ka dhaca badaha adduunka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota dalkan Kenya oo ay kamid tahay wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo kalluumaysiga dalkan Kenya shirkaasi oo si khaas ah loogu soo casuumay safiir Baasha Cawil Xaaji Cumar ka wakiil ahaan maadaama Soomaaliland ay caalamka la wadaagto bad dhererkeedu gaaraya 850 mayl oo ka tirsan badda cas ee geeska Afrika shirkaasi kadib oo safiirku socdaal shaqo ugu baxay magaalo xeebada ugu weyn dalkan Kenya ee Mombasa kadib markii uu casuumad khaas ah ka helay gudoomiyaha gobolka xeebta ah ee Mombasa Xasan Cali Jooha safiirka oo ku sugan magaalada Mombasa shirkaasna kula qaatay gudoomiyaha gobolka xeebta ah ee Xasan Cali Jooha xafiiskiisa casuumad khaas ah ugu sameeyay guriga ayaa isla safiirku waxa uu soo indheeyay ka daweyn ee magaalada Mombasa maadaama magaalada Berbera iyo magaalada Mombasa ay wadaagaan waxyaabo badan oo dhinaca horumarinta ah lana doonayo in mandaqada geeska Afrika la isku xidho ka horumar ahaan gaar ahaanna bariga Afrika haddaba safiirka oo ku sugan magaalada xeebada Mombasa ayaanu ka wareysanay shirkaasi hore ee ay soo qaban qaabisay safiiradda u fadhida safaaradda Denmark dalka Kenya iyo casuumadda khaaska ah ee uu ka helay gudoomiyaha gobolka xeebta ah ee Mombasa Xasan Cali Jooha safiirka oo khadka telefoonka kula xidhiidhnay oo labada shirba si kooban u dulmaraya ayaa iswareysigaasi waxa uu dhacay sida tan safiir hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Mombasa waa sax Abdullaahi waxaan ku suganahay magaalada Mombasa oo aan martiqaad kaga helay governorka ama barasabka magaalada Mombasa Xasan Cali Jooha waayahay safiir shirkii hore ay soo qaban qaabisay UNODC iyo kan aad ku joogto magaalada xeebada Mombasa ee aad ka heshay martiqaadka governorka Mombasa bal labadaba noo dulmar adigoo labadaba isku kay raacinaya shirka hore ee shalay tole waxa lagu qabtay deegaanka ama safaaradda Denmark waxaana organize gareeyay ambassadorka Denmark ujeedaduna waxa ay ahayd warbixin ay soo diyaarisay UNODC iyo Denmark University of Denmark oo ka hadlaysay maritime issues ama dhibaatooyinka badaha ka yimaada iyo dambiyada kala gaarka ah oo dabcan inagana khuseeyay maadaama aynu dal nahay xeeb dheer leh oo 800 kilomitir ah dunidana imika mashaakilaad fara badan ay kala kulamaan ama dhaqdhaqaaqyada dambiyada ha noqoto xagga xeebaadka marka shirkaasi kulankaas oo safaaraddu safiirku nagu casuumay si wacan uu dhacay insha Allah taala barina waxaanu leenahay kulan foolka foola oo safiirka soo arki doono oo ka hadli doono arrimaha Soomaaliland u gaarka ah haddii noqoto xaggii doorashooyinka iyo haddii noqoto xaggii arrimihii wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waa tahay maantana isaad u sheegtay waxaan kulan la qaatay governorka ama barasabka Mombasa oo isagu martiqaad rasmi ah noo soo diray kulan saacad iyo barqaadatayna aan kula qaadanay aqalkiisa ama xafiiskiisa uu ka degay magaalada Mombasa kulankayguna wuxuu daarnaa maadaama magaalada Mombasa tahay magaalo xeebeed iyaduna leh dekad weyn oo ah dekada ugu weyn ee Kenya imika ay alaabta kala soo dirto in ay magaalada Mombasa ama gobolka Mombasa isku xirkiisa iyo Soomaaliland gaar ahaan magaalada Berbera oo taariikh fara badan ka dhaxayso sidii la isugu xidhi lahaa sidii la isula dhaafsan lahaa xagga tababarada ama la iska kaalmeyn lahaa shaqaalaha iyo tababaradooda dhanka kalena loo fududeyn lahaa ganacsiga u dhaxeeya labada xeebood ama labada magaalo haday noqoto magaalada Mombasa iyo magaalada Berbera dabcanna waxa uu soo dhaweeyay governorku fikirka waxaana uu sheegay in uu danaynayo in cilaaqaad dhow la sameeyo Soomaaliland gaar ahaan magaalada Berbera oo taariikh fara badan ka dhaxaysa insha Allah taala ana sidoo ugu dhaxsaha badan leh uu rajeynayo in arrimahaas uu bilaabmaan hadwalay waayahay aad baad u maasan tahay safiir aad ayaad u maasan tahay kaasina waxa uu ahaa safiirka Soomaaliland fadhiya dalkan Kenya Baasha Cawil Xaaji Cumar oo aanu khadka telefoonka ku wareysanay maruu ku sugnaa magaalada xeebada Mombasa Cabdillaahi Cabdi Cali warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi